maanta oo aan joogno magaalada Laascaanood anigoo ah madaxweynaha Warsageli Tuuje aan dhalay waxaan u maleynayaa inay halkaas ka muuqato inaan loo kala harin wixii ka dhacay meesha la dhaho gobolka Sool SSC wixii loo geystay iyo xasuuqii lagu sameeyay oo ka jawaabayna waxaan u maleynayaa inay ka baxday meesha waana la xasuuqay qolada dariska nahay Somaliland oo intay meesha waa ka baxday waxaan idin sheegaynaa inaan haddaanay ku noqon fariisimahoodii ay ka soo kala tageen inaanu tallaabo sharciga ka qaadayno oo aan loo kala harayn haddii aan wiil hal naaskeed gaaraan naga haray dagaalkaas waa dagaal dalkayagii oo lagu soo duulay dadkayagii oo la baabi'iyey maatadii iyo carruurtii oo la xasuuqay faraha kama laabanayno umana jeedi karo waxaan leeyahay inta nabadda joogtaa ninba laba nin leegyahay baa layidhi haddii aan la dayn waxa faragelinta haddaan lagala bixin Sool iyo Sanaag iyo Cayn wixii la arkay wax ka daran baa indhaa laga qaadaya anigoo ah madaxweynaha Warsageli waxaan leeyahay nabaddu ninna lama dhalanayo inkastoo isaga dani ugu jirta ninkii nabadda diida colaad wuxuu ka helo iyo waxba naga siin muuse biixi cabdi oday Soomaaliyeed askari indha adag dalka iyo dadka adeer gacaliyo tasho nin baa la ka dhigay wallaahi billaahi tallaahi baadan colaad iyo khasab noogaga dhigay Somaliland aan ahayn inaana naga dhigay madaxweyne su'aal ma weydiinaya ay adeer macaan maamulka Somaliland ama SLM wuxuu leeyahay dagaalka Laascaanood ka socdo oo ay ognahay ciidamada SSC iyo jamaacada SLM u dhaxaya oo caalamku laga ogyahay Puntland bana weerarayso waxa xabad kama jiraan adeer dalka waxa kale arintaas waxaan kale adeer Puntland wax la yiraahdo weeraraya ma jiraan dadkii dalka lahaa weeye dadka dagaalku madaafiicda la dhaxaysay SSC shacabkii SSC way dadku la dagaalamaya wax Puntland la yiraahdo iyo maamul kale oo halka ka dagaalamaya iyo midna ma jiro waa dadkii u dhashay oo xasuuqay Muuse Biixi SSC weeye dadka meesha ka dagaalamaya waxaas waa sheeko waan sheekaduna way iska dhamaanaysaa ma garatay marka waxa adeer xukuma jiraan